السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ونكسن داوديال كسو دواada warka warbaahinta deegaan TV qodobadaad ku daawad doontaan waxa kamida kooxo dabley ah oo dad shacab afduub ku haystay oo laga sii daayay gobolka Hiiraan dawladda Soomaaliya oo sheegtay in ay cafis u fidinayso maleeshiya Kenya ay ka soo abaabulayso dalkeeda dagaal adag oo u dhaxeeyo dawlad deegaanada Canfarta iyo Soomaalida oo ka dhacay dalka Itoobiya qodobada caalamkana waxa kamida maamulka Yahuud oo ka walwalsan weerar kaga yimaada dawladda Iiraan iyo madaxweyne Donald Trump oo wajahaya fadaxadihii ugu xumaa intaas waxay ahaayeen qodobadii warkan ugu doorka roonada wadeel hataase ku soo dhawaada warkii oo fidsan markan gobolka Hiiraan tiradoodu ay gaarayso 5 qof oo maalmihii la soo dhaafay kooxo maleeshiyaad ah uga afduubanaa gobolka Hiiraan si gaar ah degmada Maxaas ayaa wararku ay sheegayaan in la sii daayay ka gadaal markii lacag madax furasho ah oo kooxda maleeshiyaadka ay sheegteen ay dadkii ehelada ahaa ee dadkani ka soo jeedeen lacagtaas ay bixiyeen waxaana hadda la warinayaa in 5 qof imaka ay si toos ah u gaareen degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan dadkan la afduubtay ayaa marayay deegaanka Goobo ee hoostaga degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan maleeshiyaadka dadkan afduubtay ayaa waxa ay sheegeen in beesha ay dadkani ka soo jeedaan horay ay dad ugu dileen wararka aan ka helayno dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa sheegaya in halkaas dagaal adag oo u dhaxeeya dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo kuwa Canfarta ee dalka Itoobiya dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka tirsan gobolka City ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaana uu dhex maray ciidamada Liyu Police ee dawlad deegaanka iyo kuwa Canfarta oo la sheegay in ay weerar ku soo qaadeen dhulka Soomaaliyeed ee ay Itoobiya wararka laga helayo deegaankaasi ayaa waxa ay sheegayaan in dagaalka ugu yaraantii ay 8 ruux ku dhaawacmeen halka 10 kalena ay ku dhinteen dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa dhamaantood ka soo kala jeeda dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo kuwa Canfarta ee duulaanka ku soo qaaday deegaano ka tirsan gobolka City ee dhulka Soomaaliyeed oo Itoobiya maamusho dawladda Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in markaas ay cafis u fidinayso maleeshiyaad la sheegay in ay daacad u yihiin wasiirka amniga maamulka Jubbaland taliyaha ciidanka dhulka xooga dalka Soomaaliyeed General Maxamed Tahliil Biixi oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay cafis u fidisay dhammaan maleeshiyaadka u dagaalamaya Cabdirashiid Janan taliyaha oo ku sugan qayb ka tirsan gobolka Gedo ayaa waxa uu xusay in dawladda Soomaaliya maleeshiyaadkaasi ay dib u habeen ku sameyn doonto isla markaana ciidamada qalabka sida lagu biirin doono taliyaha oo kulan la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada Beled Xaawo ee gobolka Gedo ayaa waxa uu ku baaqay in wiilashooda dib ugu soo celiyaan Beled Xaawo isla markaana ay dawladda Soomaaliya cafis u fidisay inta u dhaxaysa magaalooyinka Beled Xaawo iyo Mandheer ayuu sheegay taliyuhu in ay ku sugan yihiin ciidamo uu hogaaminayo wasiirka amniga maamulka Jubbaland Cabdirashiid Janan waxaana dawladda Soomaaliya ay kol hore sheegtay in dawladda Kenya ay soo hubeynayso maleeshiyaad markaasi khalkhal ka abuuraya gobolka Gedo markan qodobada caalamka Israa'iil ayaa hubkeeda difaaca gantaalada geysay koonfurtaasi oo lagu micineeyay taxadir iyo markaasi u diyaar garow weerar laga cabsi qabo in Yahuud lagu soo qaado ilwaraajada qaar ayaa waxa ay sheegayaan in laga cabsi qabo in jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iiraan ay tallaabo ka qaado maamulka Yahuud oo maalmihii ugu dambeeyay falal daandaansi ee ka waday dalalka Suuriya iyo goobo kale oo ay degan yihiin dagaalyahanada ururka Xisbullah oo xulafo muhiim u ah dawladda wadanka Iiraan sida ay sheegayaan warbaahinta Israa'iil difaacyadana waxa la rakabay bilowgii sanadkan xilligaas oo ay ku beegnayd sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegatay General Qasim Suleymani oo 3 bishii January ee 2020 ay Mareykanka ku dileen meel sidaas aan ugu sii fogeyn gegada garoonka diyaaradaha magaalada Baghdad ee caasimadda wadanka Ciraaq waxa la sheegay in Israa'iil walwal badan ay ka qabto in Iiraan ay weerar ku soo qaado waana sababta ugu weyn ayaa la yiri ee habka gantaalada Israa'iil ay u rakabanayso Iiraan ayaa sanadkan wacd ku martay in ka gadaal markii dhamaadkii sanadkii aan soo dhaafnay 2020 la dilay aabihii hubka nuclearka dalka Iiraan Muhsin Fakhrizad ayaa Iiraan waxa ay sheegtay in maamulka Yahuud ay ka aarsan doonto dilkaasna iyagu ka dambeeyeen madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu qorshuhu yahay in xilka qaadis lagu sameeyo ka hor 20 bisha January oo ay maalmo kooban oo qura naga xigaan
waxaana la sheegay in taageerayaal taabacsan madaxweyne Donald Trump ay xoog ku galeen bishan aan ku jirno aqalka Koongareeska ee dalka Mareykanka. Trump ayaa waxaa la qorsheynayaa in xilka laga xayuubiyo. Mr. Pence ayaa waxa uu sheegay in haddii madaxweyne Trump aanay xilka laga qaadin qalalaasaha iyo walwalka dhinaca amniga ee dalka Mareykanka uu sii kordhayo, isla markaana Trump uu dadka sii kicinayo. waxaa la warinayaa in maanta oo Isniina kulan degdeg ah ay yeelanayaan golaha Koongareeska ee wadanka Mareykanka. haddii maanta oo cod aqlabiyad ah lagu meelmarin waayo xilka qaadista madaxweyne Donald Trump, waxa uu qorshuhu yahay in Talaadada mar kale dib la isugu soo laabto, markaas oo ay u badan tahay in madaxweyne Donald Trump xilka laga xayuubiyo ka gadaal 4 sano oo uu maamulayay aqalka cad ee laga xukumo wadanka Mareykanka. 152 sano kadib ayuu waxa uu noqonayaa madaxweyne Donald Trump ayaa waxa uu ku biirayaa tiro faraku-tiris ah oo horey Mareykanka u soo maamulay, kuwaasoo ugu dambeyntii qaab wejigabax ah xilka looga qaaday. warkii aad ka daawanayseen warbaahinta Deegaan TV ayaa intaa ku dhan. warkan warka xigeentaan ku kulmi doona nabadgelyo. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkeena subscribe saar.